السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء شبكة لقى برسالة مكتنا وشيء جود هنتي الله يقان تجمال وأنا جميل عبدية هدي الله إنه مقال كنا العصب وحنقوق عندنا 10 لياب له خاصو sometimes laga yaabo inaad ka naxdo sometimes laga yaabo inaad aaminto. casharkeena wuxuu ku saabsan yahay su'aal ayaan ka jawaabi doonaa haddii aan leedmo saad horeba ugu aragteen ciwaanka sare ee aan casharka ugu talagalnay maxaa ku dhacay Facebook-gaaga haddii aad dhimato. su-aashaas oo aad laga yaabo sometimes inaad ka naxdo waayo geeridu inta badan waa wax laga naxo. waxaan insha Allah ka jawaabi doonaa su-aashaasi waxay sheegaysaa Facebook account-ka aad ku leedahay Facebook shabakada waxay kuugu talagalay shakhsi walba in system-ka laba options iyo laba macnaha choice ama laba ikhtiyaar kuwaasoo kala ah in haddii aad rabto imika ayuu ku sii siinaya oo imika waxaan gelaynaa oo kale system ama setting ama waxaad ba soo taqaana habeyn ayaa ku qoran luqadda Soomaaliga aan ku isticmaalayaa. markaad security-ga tagto waxaad tagaysaa contact login ama contact legacy. contact legacy-gaas wuxuu sheegayaa option ku siinaya haddii aad dhimatay in account-kaaga lagu xidho oo qof oo someone oo notification u soo diro Facebook oo yiraahdo qofkaas uu dhintay account-ka ka saar. in uu qofkii aad imika u wakiilato haddii aad dhimato in uu ku sii isticmaalo oo like ku siiyo wixii sawiraana postiga ama oo ku akhriyo like ku siiyo friends-ka request-ga uu ku aqbalo profile-kaaga ku bedelo sawirka ku yaala uu ku bedelo laakiin una ka arag amba una ka akhriyin wax message loo soo dhigay iyo wax postiyo inuu ku soo bandhigin ama uu soo share karin. contacts waxa kale uu ku siinaya in account-ka guud ahaanba uu delete gareeyo. labadan option waxa kamid ah inaad isticmaasho inaad choose friends aad u doorato inuu ku isticmaalo Facebook-gaaga oo haddii aad akhrido xaggan contact legacy wuxuu ku leeyahay is someone you choose to manage your account after you pass away ayuu ku leeyahay. they will able wuxuu kugu qabanayaa uu ku do things shayadu ku qabanayo haddii aad imika u wakiilato qof haddii aad dhimatay inuu ku sii isticmaalo Facebook-gaaga ay ka mid yihiin inuu postiga ku timeline-kaaga uu like ku siiyo uu respond uu ka bixiyo ama uu friends-ka ku soo codsada inuu request-ga ka aqbalo iyo inuu ku update gareeyo profile-kaaga laakiin kaama isticmaalayo ama post ma soo dhigayo mana arkayo wax message oo ku soo dhigayo. ugu dheeraad ah haddii aad si akhriso inaad rabto inaad si akhrisato waad si akhrisan ka bacdi qofka xaggaas ayaad ku qoraysay ima tusaale ahaan oo kale qof haddii aan rabo inaan ku qorto saas oo kale aan ku qoran ka bacdi waxa ii soo baxay magaciisa imiga tusaale ahaan oo kale qof ayaan ku qoranay kaas oo kale ayaan ka qoranay waan tusaaleynaa ka bacdi saas aan ugu dhigin aad ayaad oranaysaa ka bacdi markuu aad tiraahdo qofki kale ayuu option siinaya uu leeyahay qofkaas wuxuu ku wakiisha haddii uu dhinto inaad u isticmaasho Facebook-gaaga family-gaagana uu ka mid yahay oo qof family ayaa loo baahan qof aad saaxiibadiina isku doodin inaad u isticmaasho qof aad ku kalsoon tahay macnaha. ka bacdi qofkaasi aad u sii wakiilatay inuu Facebook-ga ka isticmaalo isuna inuu soo aqbalayaa muhiima uu soo aqbalayaa ka bacdi markuu soo aqbalo saas ayuu kuugu isticmaalaya ka bacdi hadhow tale haddii aad dhimato oo tii alla ku timaado wayna wada sugaysaa oo nin walba waqti uu leeyahay. sometimes waxa laga yaabaa qofka aad u wakiilatay inuu ka horeeyo ka bacdi waad ka bedelan kartaa inaad ka horeyso oo ku isticmaalaan waa laga yaabaa oo waqtiga nin walba ma garanayo uu dhimanayo ka bacdi notification-ka uu ku soo diray saasaan u isticmaalay. option-ka labaad isagu waxa weeye account deletion ama inaad account-kaaga gabi ahaanba xidho markaad dhimato. wuxuu ku leeyahay imika xaggan akhrino your request permanent deleted buu ku leeyahay after you die someone is let me ask to know markuu qofna soo macnaha noo soo sheegay inaad dhimatay ama uu soo wargeliyo account-kaaga si permanent ama dhammaystiran ayaan uga saaraynaa serveradeeda ama keediyaasheeda aan ku kaydsanno macluumaadka sawiraantaada xagaad ku dhalatay telefoonka wixii gabi ahaan oo dhan ayuu ka saaraya. kaas imika anigu on ayuu yahay laakiin markaad gasho adiga saas oo kale noqonaya request deletion account deletion ayuu ku soo qori ka bacdi waa kan wada akhrisan
wuxuu kuu sheegayaa inuu qofkii marka uu dhinto uu iska xiray facebookaga markuuna qof uu soo notification usoo diro ama uu kuu soo sheegay inaad dhimatay oo ay ti alla ku timid ama aad xijaabatay haddii aan ereyga yar asturno waayo dhimasho haddaan dhiraahno waa laga wada naxayaa inkastoo aan wada aaminsanahay dhimashada laakiin haddana waan ka wada naxay inuu laakiin boostigaagii iyo permanent uu saarayo oo profilekaagana uuna qof dambe arki karin okay delete after badanaysa labada option ayuu ku siinaya kabacdi markuu ku yiraahdo keep your account Facebook keep your Facebook account kaaga inaad tiraahdo hadhow talo ayuu ku soo dhigaya waayo kan waxa weeyaan hadhow office ka sii deletion kan oo haddii aanad rabin office ka sii weeyaan laakiin kaba imika saas markuu kugu taagan yahay akoonkaaga waa la xidhaya maalinta aad dhimato qofna uu soo notification gareeyo oo asxaabtaada ka mid ah uu yiraahdo Facebook qofkaas oo kale uu diro message uu dhintay kabacdi pass away وإنه كل سوسيين أنت أصلاً ما تعشر كنا كتشوفين دورنا هدي الله إنه أو سؤال معقول sometimes سنة لوجنا حيو أي هايب أنت هنا نكبحين وحنا حسوسين لها إن لايك ترى هذا فيسبوك شبكة دان كلنا هاي فيسبوك بيج دان كلنا هاي فضلاً لايك نوسي سأل أنا ولا ساعة توحي معلومة هذا عن سوق إنه شبكة بيج كل هذا هاي فيسبوك waxaa kaloo isagana muhiim ah inaad YouTube-ka isagana aad subscribe tiraahdo channel-kan ku leenahay YouTube aad fadlan like subscribe noo tiraahdo mar walba oo aad subscribe tiraahdo mar walba saa notification-adan oo kale uu kugu soo dhigo notification in video cusub la soo dhigay Facebook YouTube hana ilaawin Twitter-ka oo kale waan soo dhignaa macluumaadka iyo Instagram-kaba labadoodana waan soo dhignaa fadlan social media account-nadan ku leenahay oo dhan fadlan like siisaad mar walba ula socoto newsiski oo kale article-ladii oo kale inaad ula socoto intaasana maanta cashirkeena ku joojin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh